بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. maanta oo ay bishu tahay 16 bisha November 2024 haddaan idinka siiyo warbixin halkay marayaan hawlihii tirinta iyo codadka iyo soo saarista natiijada doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee gobolka Awdal waxay ku soo dhamaadeen degmooyinka guud ahaan guul degmooyinka Seylac Lughaya iyo Baki dhammaantood way soo dhamaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijada degmada Boorama oo hadda aan ku suganahay gaar ahaan jaamacadda Amuud waxa xalay noo dhamaaday tirintii doorashada madaxtooyada iyo soo saarista natiijadeeda imanka waxa lagu guda jiraa oo bartanka maraya doorashadii tirintii codadka doorashada xisbiyada qaranka insha Allah mar dhow 8 ugu dambeyn waxa noo dhamaan doona tirintaasi isla caawana waxaan ku rajo weynaa inaan soo saaro natiijadii heer gobol guud ahaan hawluhu si fiican bay noogu socdaan in yar oo dib u dhaca ayaa nagu yimid maadaama ay xeerku sheegay in 2 cisho lagu dhameeyo degmooyinka degmada Boorama ayaa waxay nala dhaaftay 2 cisho oo shaqadan maanta socota waa maalintii gobolka waxyaabaha keenay inay dib u dhaca yar waxa kamid ah qancinta aanu qancinayno iyo hubinta aanu hubinayno in natiijooyinku sax yihiin oo daneeyayaasha dhammaantood laga qancinayo wax kasta oo ay tawdaan oo sharciya sidaa daraadeed shalay toole waxaanu dib u tirinay oo furnay 9 sanduuq oo kamid ah degmada Boorama nasiib wanaag dhammaan sanduuqda aanu tirinay dib u tirinay codadka ka soo baxay waxay noqdeen codadkii hore ee laga soo gudbiyay degmada taasina waxay sheegaysaa ay marag madoon u tahay inaanu diyaar u nahay inaanu hubinno isla markaana aanu dadaal badan gelinay doorashada diyaar garowgeegii shaqaalaha xulistoodii oo ay ahaayeen natiijadii hore soo baxday heer degmo ay ahayd mid sax halkan waxaan uga mahadnaqayaa shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gutay waajibaadkooda dastuuriga waxaan gaar ahaan uga mahadnaqayaa shacbiga xariirta ee gobolka Awdal sidii fiicneed ay u codeeyeen sidii fiicneed ay ula shaqeeyeen shaqaalaha komishanka iyo sidii fiicneed ay u martigeliyeen kumanaankii ka shaqeynayay doorashada iyo kuwii socday ololaha waxaan mar laba ilaaweyn u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida guud ahaan oo ah fuliyayaasha iyo hawlwadeennada ka shaqeynayay hirgelinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaaliland waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ardaydii qiimaha badnayd barbaartii dirnayd tababarnayd ee qiyamka lahayd ee dalkooga u shaqeeyay iyadoo la geeyay meelo fogfog oo aanay weligood arag oo ay ku cusub yihiin waxaad gudateen waajibaad qaran aad baad u mahadsantihiin waxa kaloo iyagana aan u mahadnaqayaa hawlwadeennada gobolka iyo degmada ee komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna muujiyay dulqaad hawlkarnimo iyo daacadnimo insha Allah doorashadu waxa weeyaan waa waajibaad qaran si fiican bay gobolkan Awdal noogu dhamaatay isla caawa 8 habeenimana waxaan jecelahay inay noo soo gabagaboodo sidoo xeerku sheegayo marka ay doorashadu heer degmay iyo heer gobolba soo gabagaboodo tirintu komishaneerka heer qaran wuxuu qaadi doonaa waraaqaha natiijooyinka doorashada kuwaas oo ay la socdaan tixraacyadoodii iyo cadeymahoodii oo dhameystiran waxaan u geyn doonaa xarunta heer qaran oo lagaga dhawaaqi doono natiijada guud ee doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee 2024 Somaliland guul shacbi weynaha Somaliland guul dhammaantiin wada wasalaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh